Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaasha iyo dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee daafaha dunida inagala socda. Halkani waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway oo aad aalaaba uga barateen barnaamijyo lagu dhisayo garaadka qofka, qoyska iyo qaranka Soomaaliyeed. Haddaba maanta waxaynu ku sugannahay hoyga kaydinta hidaha, dhaqanka iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed oo loo soo gaabiyo Matxafka Qaranka. Hoygan oo jiilasha Soomaaliyeed ee isxigxiga loogu kaydiyo astaantii iyo asaartii iyo milkihii dadkeena, deegaankeenna, dalkeenna ay lahaayeen ayaa waxaa dhidibada loo taagay sanadka markuu ahaa 1933 oo ay hadda ka soo wareegatay muddo laga joogo 92 sano. Waxaana markii ugu horreysay lagu yagleelay hoygii uu magaalada Muqdisho ka deganaa Barkhash Saciid, wuxuuna halkaa ahaa Matxafka Qaranka Soomaaliyeed ilaa laga soo gaaro sanadkii 1985 markaa oo loo soo raray hoygan cusub oo dhidibada loo taagay, waxaana si rasmi ah loo daafuray sanadka markuu ahaa 1987. 1991 waxaa qaybtiisa ka soo gaartay burburkii iyo bililiqadii ka dhacda dalka, waxaana xilligaa ku kaydsanaa in ka badan 4,000 oo shay kuwa oo xambaarsanaa taariikhdeenna, hidaheenna iyo dhaqankeena. Khubarada ayaana sheegay in yar ay burburtay, qaarna dibadda loo qaaday, ha yeeshee intii ugu badnayd ay gudaha dalka weli yaalaan oo guryaha lagu haysto, waxayna ku baaqeen in dib loogu soo celiyo hoygoodii. Burburkii kadib 2020 ayaa mar kale dib loo furay, waxaana lagu qabtay bandhig farshaxameedkii ugu horreeyey kaa oo lagu magac daray Hoy, waxaana ka qayb galay ilaa 18 farshaxamiiste oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa isaga yimid. Si taalamidana waxaa qayb ka ah farshaxamiistayaal ajaanib ah oo u kala dhashay wadamada Sweden, Italy iyo Mexico, kuwa oo qaab fogaan arag ah uga qayb qaadanayay. Somali Voice in Norway oo soo booqatay hoygan ayaa waxaa ku soo dhaweysay Bushra Maxamuud Maxamed oo ka mid ah farshaxamiistayaasha gabdhaha Soomaaliyeed. soo dhawo Somali Voice in Norway. Marka hore magacaada iyo hawshaad waxay tahay. magacayga waa Bushra Maxamed Maxamuud. waxaan haysaa qaado iyo qoraa. Bushra oo ka mid ah hal abuurada farshaxanka ee kusoo bandhigo dareenkooda sawirada ayaa inooga faahfaahisay sawirada ay kusoo bandhigtay masraxan. Waxa ayna faahfaahin naga siisay sawir walba muuqaalkiisa, ujeedka ay u samaysay iyo tuduca uu xambaarsan yahay. Waxayna sidoo kale noo sharaxday waxa ku kalifay in ay kusoo birto bahda farshaxanka si ay dareenkeeda ugu cabirto oo ay qalinka u qaato inay sawirto. Bushra ayaa waxaanu weydiinay waxa ku dhaliyay arrintan. waxaan nahay qof oo aad u dareen badan, so dareemahayga si aan u xakameeyo ama si aan ula falgalo waxaan u baahanahay inaan cabiro ama aan sheego. qaabo badan aan ku cabiraa, qorista iyo sawir qaadista. so sawiradaydu ma ka hadlaan keliya dhacdo iyo meel, waxay kaloo ka hadlaan dareen. si qofkii arka wuxuu isaga ka dhex dareemay ama sida isaga gudihiisa ka dareemaya uga dhex arki karo. Sawiradan sida muuqda adaa sawire waa kee sawirka kugu dareen badan oo aad sawirtay. sawirkan gadaasheena ah. Sawirkaana kugu dareen badan. dhacdad ku khaas u xambaarsan yahay. dhacdadaas khaaskii ah waxa waaye eedadii aad igu qaali ahayd. aabahay hal walaalu leeyahay, halkii gabar oo la dhalatay ayaa naga xanuunsatay. so waxa la dhahaa enough caring. waxay ahayd qof aad caring, aad dadkeeda u daryeela, aad u jecel, jacayl badan xambaarsan, naxariis badan xambaarsan. so aad inoo dhaawacday inaan aragno iyadoo xanuunsan oo u baahan in la garab istaago oo la daryeelo. kadibna ilaahay baa ammaanadiisi qaatay waa naga. balse waxaa rabaa in sawirkan gudihiisa ka dhex muugsho inaysan weligeeda tegi doonin, inay jirayso qalbiyadeena iyo qof walba wax usoo samaysay wanaag. dhanka artiska iyo qoraalka gabdhaha Soomaalidu way ku yar yihiin, maxaa kula talin lahayd? qaar badan oo xirfad leh laakiin aan ku dhiiranayn inay bulshada wax soo bandhigaan ay jiraan. walaal mid baa aaminsanahay qof walba waa artiste, qaabab usoo gudbinaa unbaa kala duwan. mid baa sheeko ku gudbiya, mid baa qaylo ku gudbiya, mid baa buraanba ku gudbiya, midna qoraal. so qofkii iska dhex arka inuu qoraalku yahay hibadiisa ama shay uu wax ku sheegi karo, uu naftiisa ku cabiri karo, waxa kaliya aan dhihi lahaa ha dhegaysanin codadka banaanka ka socda. codka gudaha ku jira dhegayso, wuxuu codkaabka yidhaahdana qor. kadib isku day inaad hiigsato aqoon kale iyo dadkaas istare, laakiin ha isdhihin qoraa fiican ma tihid amase ma kugu filna waxaad haysatid, codkaas inta daba gashid qor.
aadan masanti amaasinta halkani waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana barnaamijkan idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Nuur Xasan Shiine